kolkii rafaad iyo cadaadis badan ay la kulmeen nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisii reer Maka waxa uu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee amray koox muslimiin ah inay guuritaan u baxaan hijro sameeyaan una hayaamaan dhul nabdoon oo ay ku badbaadaan dhulkaasi waxaa la oran jiray ardul xabasha Abasiiniya oo maanta loo yaqaano Ethiopia xilligaas waxaa ka talinayay boqor masiixi ah oo caan ku ahaa naxariis iyo cadaalad loona yaqaanay Najaashi boqorkaas garsoorkiisa dartii ayaa loo go'aamiyey inay muslimiintu magangeliyo iyo dhowrtaba ka heli doonaan waxaana la maleeyay inuu ogolaan doono inay si buuxda oo madax bannaan ilaahay ugu caabudaan dhulka uu asagu ka taliyo sanadkii shanaad ee bicsida nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee kuna beegnayd 614 ilaa 615 miilaadiga bishii Rajab ayaa kooxdii ugu horeysay saxaabadu safar ku aadeen dhulka Xabash saxaabadaasi waxay ka koobnaayeen qiyaastii 12 nin iyo 5 dumar ah waxaana ku jiray Uthman ibn Affan iyo xaaskiisii Ruqayya gabadhii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Quraysh ayaa ka daba qaadatay waxay beegsadeen ilaa xeebta Shucayba ee badda cas waxay doonayeen inay qabtaan balse markaa ka hor ayay doontoodii ka shiraacatay xeebta taas ayaa loo yaqaanay hijradii u horeysay ee Xabasha markaas dabadeed koox ka badnayd kooxda hore oo ka koobnayd qiyaastii 83 nin iyo 18 dumar ah ayaa mar kale u haajiray Xabasha waxaana kooxda hogaaminayay Jacfar ibn Abi Talib tanna waxaa loo yaqaanaa hijradii labaad ee Xabasha qaar ka mid ah saxaabadu waxay ka qayb galeen labada hijraba Quraysh aad bay uga caroodeen arrinka mana ay qaadan karin in muslimiintu nabad ku helaan meel ka mid ah dhulka carreed sidaa darteed waxay direen wafdi oo hogaaminayay Amr ibn Caas oo markaas aan weli muslimin Amr waxa uu siday hadiyado badan oo lagu maamuusay boqorka saraakiisha iyo wadaadada masiixiyiinta markii wafdigu gaaray baltilmaameedkiisii waxay la kulmeen culimadii iyo madaxdii kuna kasbadeen hadiyado kadib bay boqorka Xabashada u gudmeen Amr bin Caas ayaa hadalka u baxay waxa uu yiri kuwani ma aha dad cadaadis uga soo cararay dalkoodii waa dambiilayaal ka soo baxsaday sharciga iyo ciqaabtiisa waxaan ka codsanaynaa boqorow inaad noo soo celiso boqorku ma degdegin xukunkana iskama ridin waxa uu amray in la dhageysto dhinaca kale waxa hadalkii qaatay Jacfar ibn Abi Talib waxa uu ka jawaabay eedahoodii waxa uu hadlay si aftahana leh waxa uu ku dadafeeyay taariikh iyo diin waxa uu ka faa'iideysanayay jaaniska uu helay waxa uu fidinayay dacwada waxa uu ku jawaabay waxaan ahayn dad jaahilnimo ku nool xooga ayaana maamuli jiray katabarta yar ayaa la cadaadin jiray maanan lahayn sharci maanan lahayn xeer waxaan caabudi jirnay sanamyada dhagaxda iyo qoryaha ilaahay ayaa noo soo diray rasuul naga mid ah oo naga xoreeyay waxaas oo mugdi ah muslimiintii Xabasha ku maqnayd waxay ugu dambeyn soo gurya noqdeen sanadkii 7 ee hijriga oo ku aadan 628 ilaa 629 miilaadiga laakiin Madiina ayay muslimiintu ugu yimaadeen boqortooyadii Aksum waxay ka jirtay dhulka Itoobiya qarnigii koobaad Ciise dabadi Aksum waa magaalo ku dhex taal buuraha waqooyiga Itoobiya ku yaal gaar ahaan dhulka Tigray waxay boqortooyadu ku fidsanayd ilaa dadka hadda loo yaqaano Eritrea juqraafi ahaan deegaanka ayaa kaalin weyn ka qaatay kobaca boqortooyada Aksum magaaladu waxay ku dhex taalay buuraley waxayna qiyaastii 2000 oo mitir ka sarreysaa heerka badda cimiladeeda roobkeeda iyo carrabacsanaanteeda daraadeed waxay ku habooneed beeraha iyo xoolo dhaqatada xilligii u dhaxeeyay qarnigii 3 ilaa 6 boqortooyadii Aksum waxay noqotay boqortooyo hodan ah oo kala sarreyn bulsho iyo darajooyin ku dhisan boqortooyadii magaalada Aksum waxay sii ballaaratay xukunkeediina waa adkaaday magaalooyin yar ayay samaysatay dhul ballaaran ayayna aakhirkii ka talisay waxaa dhulka ka mid ahaa gobolka Tigray ay ka dhalatay waqooyiga Eritrea dhulka lamadegaanka iyo xeebaha koonfur bari iyo dhul badan oo ku teedsan xeebta badda cas dhulkaas oo hadda ka kala tirsan wadamada Djibouti iyo Soomaaliya waxa kale oo ay dagaal ku qabsatay dhul ka mid ah wadanka Suudaan sidaa darteed ducada nabiga ee ardul Xabasha waxay wada taabanaysaa wadamada Ethiopia Eritrea Djibouti Suudaan iyo Soomaaliya qiyaas ahaan boqortooyadani waxa la aasaasay qarnigii koobaad Ciise dabadi waxa lagu tilmaamaa inay sal ku lahayd dhaqanka Xabashida iyo saameyntii Carabta iyo Roomaanka taariikhyahanadu waxay rumaysan yihiin in Aksum ka dhalatay isku dhaf ku yimi dadka degan ee ku hadli jiray luqadda Ge'is
iyo ganacsatadii carabta ee xeebaha badda cas. Aksum waxay jirtay oo dhisnayd qiyaastii 1000 sano. waxaa la rumaysan yahay inuu xukunkeedu ugu xoogganaa intii u dhaxaysay qarnigii 1 ilaa qarnigii 7 ee miilaadiga. waxay ahayd xarun ganacsi oo muhiima oo isku xidhi jirtay Roomaanka, Hindida iyo Carabta. waxay caan ku ahayd dhoofinta dahabka, foolmaroodiga, fardaha iyo qoryaha qaaliga ah. boqortooyada Aksum waxay ahayd boqortooyadii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee si rasmi ah u qaadatay Masiixiyadda sanadkii 330 Ciise dabadii. waxay caan ku ahayd taalooyinka waaweyn Stele iyo Obelisks, kuwaas oo weli ka muuqda magaalada Aksum ee maanta ku taal waqooyiga Ethiopia. waxay lahayd luuqad iyo qoraal u gaar ah oo loo yaqaan Ge'ez, kaas oo weli loo adeegsaday kaniisadaha baadilka ku sugan ee Masiixiyadda aaminsan Ethiopiana ku yaala. burburkeedu wuxuu si tartiib u bilowday kadib qarnigii 7 ilaa ay gebi ahaanba hoos u dhacday qarnigii 10aad. xilligii ugu sarreysay waxay ahayd qarnigii 4 iyo kii 5aad. waxaa hogaaminayay boqor la oran jiray Ezana, waxayna ku beegnayd xilligiisu 320 ilaa 360 Ciise dabadii, kaas oo isla markaana ahaa boqorkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u qaatay diinta Masiixiyadda. waqtiga Aksum waxaa lagu tilmaami jiray mid ka mid ah 4 quudada adduunka kuwooda ugu waaweynaa, waxayna 4 ku ahayd Roomaanka, Farisiyiinta iyo Shiinaha. aan u soo noqdo boqorkii Najaashi iyo sida uu xukunka ku qabtay. Negus waxaa la oran jiray Ashham ibnu Abjar. Najaashigaas nabigu ku tukaday wuxuu boqornimada hayay ku dhawaad 17 sano intii u dhaxaysay 614 ilaa 630 miilaadiga. xoog badan lagama hayo noloshiisa gaarka ah iyo sida uu u maamulayay boqortooyadiisa, marka laga reebo in muddadii uu xukunka hayay ay muslimiintu u haajireen dhulka Xabashida, halkaasna ay kula kulmeen boqorkaas cadaaladda ku caanbaxay. wuxuu geeriyooday sanadkii 630. Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ku tukaday taabiciga salaada janaasada ee qaa'iba la yiraahdo. waxaan ahay Muxyidiin Cabdi.